Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Fahan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabdulqaadir Xuseen. Waxaynu guda jirnaa barashada ereyada ugu muhiimsan ee luqadda Englishka. Waxaynu maraynaa qaybta L waa casharkii 33aad. Vocabulary weeyaan waa ereyo. Intaan hore u gelin darsigeena, haddii aad doonayso inaad si online ku barato luqadda Englishka, waxaad si toos ula xiriiri kartaa WhatsApp numberkan shaashada kaaga muuqdo. Halkaas oo aad ka heli doonto warbixino dhammaystiran iyo casharo tusaale ah. Haatanna kusoo dhawaada darsigeena. Level, noun, the amount or height that something reaches or rises to, the position of something or someone. Liberal, adjective, one who usually supports social progress or change. Lie, verb, to have one's body on the ground or other surface, to say something that one knows is not true. Ereyga koowaad waxa weeyaan level. Level waa noun. Micnihiisu waxa weeyaan a level means the amount or height that something reaches or rises to. Waxa weeyaan level ereyga ah waxa weeyaan heer. Waxa weeyaan the amount or height that something reaches or rises to. Dhererka ama cadada shay uu gaari karo. Waa cadada ama dhererka uu shay gaari karo waa level heerku gaari karo weeyaan. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa the position of something or someone. Qofka dabaqadiisa ama heerka uu joogo level. Qofka levelkiisa waa loo isticmaali karaa. Liberal waa adjective waa sifo. Micnaheedu waxa weeyaan liberal, one who usually supports social progress or change. Waa qofka had iyo jeer taageera horumarka iyo isbeddelka bulshada. Liberal. Lie waa verb, to have one's body on the ground or other surface. Micnaha koowaad waxa weeyaan lie, in qofka la seexiyo. Qofka in meel la dhigo la jiifiyo ayaa la yidhahdaa lie. Sidoo kale waxaa la yidhahdaa to say something that one knows is not true. Waa been, in wax la beeniyo lie waa been sheegid ayadana loo isticmaala lie. Marka level waa heerka. Liberal waa qofka u ololeeya ama taageera isbeddelka iyo horumarka bulshada. Lie waxa weeyaan dhigid, qofka in la seexiyo ama been sheegid ayaa loo isticmaalaa. Life, noun, the time between being born and dying, opposite death, all living things. Lift, verb, to take or bring up to a higher place or level. Lightning, noun, light produced by electricity in the air, usually during a storm. Life waxa weeyaan noun waa magac. Micnaheedu waxa weeyaan the time between being born and dying. Waa xilliga u dhexeeyo dhalashada iyo dhimashada. Waa qofka intuu nool yahay life. Waa opposite death. Waa ereyga lid ku ah dhimashada weeyaan. Life marka nool weeyaan. All living things, dhammaan waxyaabaha nolol dhan. Life waa nolol. Lift waa verb, to take or bring up to a higher place or level. Lift marka waxa weeyaan kor u qaadid. To take or bring up to higher place or level. In qofka ama shayga la keeno meel sare ama heer sare la keeno weeyaan lift marka kor u qaadid weeyaan. Lightning. Lightning waxa weeyaan noun. Micnaheedu waxa weeyaan light produced by electricity in the air, usually during a storm. Waxa weeyaan iftiinka ay soo saarto electricity korontada in the air dhanka hawada, usually during a storm. Caadiyan xilliga weliba ay jirto dabaysha xooggan, duufaanta ay jirto. Marka lightning waxaa loo isticmaalaa marka iftiinka noocaas ah. Marka life waxa weeyaan the time between being born and dying. oo waqtiga u dhexeeyo dhalashada iyo dhimashada ayaa loo isticmaalaa. The opposite death
waxyaabaha lidka ku ama kasoo horjeedo dhimashada ama all living things waxyaabaha nool oo idil ayaa loo isticmaali karaa. Ereyga lift waxa weeyaan sar u qaadid. Lightning waxa weeyaan marka hilaacaas hilaac oo kale iftiinka xilliga dabaysha xooggan ay jirto cirka ka ifa ama xilli roobaadka oo kale. Lightning marka waa hilaac. Like waa verb to be pleased with, to have a good feelings for someone or something in the same way as similar to. Ereyga like waxa weeyaan verb waa ficil oo qofka wuxuu maqsuudkiisu ka helay to be pleased with weeyaan waxa dareen fiican u hayso weeyaan. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa wax isku mid ah, the same way as or similar to, and like wax u eg weeyaan. A limit verb to restrict to a number or amount, ama waxaa dhihi karaa the greatest amount or number permitted. Limit waa xadka shaygan tir ahaan ama cadad ahaan limitkiisa weeya xadkiisa, ama the greatest amount or number permitted cadadka ama tirada la ogol yahay ugu weyn weeya. Limit waa xadka. Ka like waa qofku wuxuu ka helo la maqsuuday ama wax isku eg. Limitna waxa weeyaan xadka weeyaan wax xadidan meesha ugu sareysa la gaari karo. Line noun along and thin mark or on a surface a number of people or things organized one after another, the edge of an area protected by military forces. Link verb to connect, to unite one thing or event with another. Noun a relation between two or more things, situations or events. Liquid noun a substance that is not a solid or gas and can move freely like water. Line waxa weeye macnaheedu waa line-ka caadiga calaamada line-ka ah ama dad la nidaamiyey oo fail ah isdaba haya line ah one after another weeyaan waa dad line ku jiro. Ama waxaa dhihi karaa the edge of an area protected by a military forces, meel qar ah oo xad ah ay waardiyeeyaan militariga ama ciidanka. Line waa la dhihi karaa iyadana. Line-ka waa kaa. Link waxa weeyaan verb waa iyada ficil waaye waa isku xiriirin to connect or to unite one thing or event with another wax isku xiriirinayo. Ama sidoo kale waxaa la isticmaalaa relation between two or more things, xiriir u dhexeeya laba ama in ka badan, ama xaalado or events ama dhacdooyin. Marka link waa isku xirid. Liquid waxa weeye noun magac waaye. Marka liquid waa dareere waxaan solid ahayn oo adkayn ma gas ahayn laakiin si freely ah u dhaqaaqi karaa sida biyaha oo kale. Liquid marka waa dareere. Line link liquid. List verb to put in writing a number of names of people or things. Noun a written series of names or things. Listen verb to try to hear. Literature noun all poems, histories and writings of a period of time or of a country. List waa list grain put in writing a number of names of people or things in wax la list gareeyo magacyo ama sheeyo la list gareeyo ama waxyaabo taxana ah oo magacyo taxana ama sheeyo taxana ah list ah ee listiga. Listen waa verb waa to try to hear waa dhegeysasho. Listen dhegeysasho. Literature waxa weeyaan all the poems, histories and writings of a period of time or a country. Waxa weeyaan literature waxa weeyaan suugaanta sida gabayada, sheekooyinka iyo qoraalada kale ee waqti soo jiray ama wadan uu leeyahay. Literature yiraahdaa waa suugaanta. Little adjective not
tall or big. A small amount. Little waa wax yar. Little wax yar. And live waxa weeyaan verb to have a life, to exist, having life or a life. And live waxa weeyaan markay tahay ficilka waa live. Waxa weeyaan to have life in waxa ay nool yihiin. Nool waa live. Ama exist ay jiraan. Adjectiveku waxa waa having life. Nool ama alive waxa nool. Live.